agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland mudane Saleebaan Jaamac Diiriye ayaa maanta xanaanada xawaadle ee magaalada Hargeysa ka furay tababar ku saabsan barashada aaladda lagu baaro uurku jirta. agaasimaha guud waxaa munaasabadan ku wehelinayay isduuha caafimaadka gobolka Maroodijeex iyo madaxa waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland. tababarkan oo la siinayo 7 xanaano oo ku yaala magaalada Hargeysa ayaa lagu baranayaa aaladda afka qalaad lagu yiraahdo ultrasound sidii wax loogu baari lahaa taasi oo lagu ogaado xaaladda uurku jirta ee ibnu aadamka. agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland mudane Cali Sheekh Cumar iyo isuduuha gobolka Maroodijeex mudane Cabdi Xuseen Caalin Cabdi Dheere oo ka hadlay furitaankii tababarkan ayaa si wada jira ugu dardaaray ka qaybgalayaasha inay si degan oo feejigan u qaataan aqoonta lagu baranayo qalabkan. geestiisana agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland mudane Saleebaan Jaamac Diiriye ayaa ka warramay sida loogu baahan yahay in qof kasta laga helo xog rasmi ah oo caafimaad taasina lagu gaari karo in howlwadeennada caafimaadku lahaadaan tababaro iyo aqoon ku filan. hadaladii agaasimaha guud oo isugu jiray dardaaran iyo dhiirigelin ayaa waxaa ka mid ahaa ogtiino waxaan qalabkan uurku jirta lagu baaraado waxaan inoo muuqan buu ku tusaya dabadna waxa hadadan si aqoon sax u aadan u fulin oo adan ugu fulin waxa report khaldan baad ayaa soo baxaya waxa loo baahan yahay aqoonta halkan ka qaadanaysa inay ka faa'iideysataan oo aad laga baxayo baahidii dhakhtarka weyn loo tagi jiray. qalabkan waa qalab qaali kulliba isticmaalkiisana waxa loo baahan yahay qofku inuu si fiican u barto xanaan dheeraadana siiyo. normally markuu meelaha kala dunida kala yaalo kuma shaqayso maxaa la yiraahdaa umulusada waxa ku shaqeeya technician u gaar ah akhriya oo barto marka waxay noqonaysaa in hadhowtu markaynu hore ugu sii marro inay dad gaar ah specialist ku noqdaan oo akhriyaan waayo hadii goor qofka saara maxaa la yiraahdaa ultrasound ka isticmaala ma noqon karayo qofkii haddana hadhowtu hawsha sii fulinay oo inuu noqdo report isku xiga tagu muhiimsan xawaa laba arrimood baladan reema si fiican u barataan saarida marka la saarayo iyo marka la akhriyo labadaba.